bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. daawadayaal kusoo dhowaada qodobada wararka qubanaha t v kuwooda ugu doorka roona waxaa ka mid ah duqa muqdisho ahna gudoomiyaha gobolka banaadir oo muwaadin soomaaliyeed ku wareejiyey guri muddo 28 sano si sharci darra looga heestay. 4 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo ku dhintay qarax ay ku duugayeen gudaha dalka Kenya. natiijo hordhac oo ka soo baxaysa baarista dilkii taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Hiiraan. wararka dibaddan waxaa ka mid ah dowladda Mareykanka oo ku eedeysay Iiraan maraakiib lagu weeraray gacanka Cumaan. waa 14 bisha 6 sanadka 2019. inta dhageystaana waa qaar ka mid ah qodobada wararka qubanaha t v u diyaar garoob wadsan. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisu ayaa muwaadin Soomaaliyeed waxa uu ku wareejiyay guri uu lahaa oo laga heestay muddo 28 sano ah. gudoomiyaha oo furaha ku wareejiyay muwaadinka lahaa ayaa ka digay cawaaqib xumo dadka sida sharci darrada u degan hantida muwaadiniinta kale ee doonaya in dib loogu soo celiyo xaqooda. cidna si sharci darra uma haysan karto muwaadin kale hantidiisa. tan iyo maamulka markaynu imaanay waxaan ku guuleysanay inaan dib u soo celino hanti ay lahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed kuwaas oo dad ay ka heesteen, balse arrintan ayaa ka duwan oo maxkamadii xabsi ay gaartay gudoomiyaha gobolka banaadir injineer Yariisu. gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa sheegay in muwaadinkii guriga sida sharci darrada u heestay uu ahaa sarkaal ka tirsan ciidamada booliiska lana horkeenay maxkamadda isla markaana la marsiin doono hanaanka sharciga ee uu mudan yahay. dhankiisa injineer cali maxamed bare oo ah muwaadinka gurigiisa sida sharci darrada loo heestay ayaa uga mahadceliyay maamulka gobolka banaadir dadaalada joogtada ay ku bixiyeen dib u soo celinta hantidiisii ka maqneed 28 sano la soo dhaafay. 4 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay gudaha dalka Kenya. saraakiisha ciidamada booliiska ee gobolka Lamu ayaa sheegay in 4 ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay ku dhinteen qaraxa markay ay dooneen wadda ay dadku ay maraan oo ku taala gobolka Lamu. 3 ka tirsan al-shabaab ayaa isla goobta ku dhintay halka ninka kale oo afraad ay ka heleen ciidamada Kenya wax yar u jirta oo qaraxu ka dhacay isagoo isku dayay inuu baxsado, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Lamu ahna madaxa howlgelinta kaymaha. qarax ayaa ka dhacay meel u dhow Olomo Brenki oo ka tirsan gobolka xeebta ah ee Lamu. ayay argagixisadu waxay doonayeen inay la eegtaan dadka iyo gaadiidka halkaasi isticmaala. ciidamada dalka Kenya ayaa goobta gaaray oo qaraxu ka dhacay waxayna ka heleen qaar ka mid ah saanadii militari ay wateen kooxda al-shabaab, qasnado, rasaas, qoraallo kale iyo agab kale oo kala duwan oo ay wateen kooxdu. natiijo hordhac ayaa ka soo baxaysa baaristii dilkii taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Hiiraan. guddiga loo xil saaray baarista dilka taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan ayaa soo saaray natiijo hordhac kadib markii ay baareen qaabka loo dilay taliye Macow. guddiga ayaa sheegay in baaritaanku meel wanaagsan marayo isla markaana dadka loo xiray falkaasi dilka ah ay maanta maxkamad ka soo muuqan doonaan si wax looga weydiiyo cidda amartay in la dilo taliyaha. taliyada hore ciidamada booliiska Hirshabeelle Cali Dhuux Mahadalle ayaa hogaaminayay guddiga madaxweyne Waare u magacaabay dilka taliye Macow, waxaana uu sheegay in hadda rajo wanaagsan laga leeyahay in xaqiiqda baaritaanka ay keenaan. sidoo kale waxa uu sheegay in la kulmay ehelada taliyihii qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan marxuum Maxamed Macow Xalane, isla markaana la isku afgartay in maanta Jimcaha meydkiisa la aaso. dhinaca kale xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 27aad dhamme Maxamed Cabduqaadir Maxamed ayaa sheegay in baaritaankooda ay ku soo qabteen 6 ruux oo ku eedeysan dilka taliyihii qaybta booliiska ee gobolka Hiiraan, isla markaana ay weli baaristu ay socoto. madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa horey u ballan qaaday inuu cadaalad heli doono Korneel Macow. sidoo kale waxa uu sheegay in dhammaan reer Hirshabeelle ay heli doonaan cadaaladda. dilka taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Hiiraan ayaa sii horiyay xiisada u dhaxaysa madaxweyne Waare iyo gudoomiyaha xilka laga qaaday, waxaana dowladda Soomaaliya dhankeeda u magacaabday guddi soo baaray arrinta qalalaasaha ka dhacda gobolka Hiiraan. halkaad warkaasi kala socotaan daawadayaal waa qubanaha wararka t v. iminkana wararka dibadda. dowladda Mareykanka ayaa ku eedeysay Iiraan maraakiib lagu weeraray gacanka Cumaan. xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mark Pompeo ayaa dowladda Iiraan ku eedeeyay inay beegsadeen 2 markab kuwaas oo saliidda qaada oo lagu weeraray gacanka Cumaan. waxa uu sheegay Mareykanku inay sameynayaan baaritaano ku qotoma xogo sir ah oo la xiriirta hubka noociisa loo adeegsaday maraakiibtaasi. hase yeeshee sarkaal sare oo ka tirsan dalka Iiraan
ayaa BBC-da u sheegay in Iiraan aysan wax lug ah ku lahayn maraakiibta la weeraray. 14 badmaaxe oo la socday labada markab ayaa ciidamada dalka Iiraan ay soo badbaadiyeen iyagoo geeyay dekad ku taala dalka Iiraan. mid ka mid ah maraakiibta oo laga lahaa waddanka Jordan ayaa waday kiimiko oo ka soo qaaday dalka Qatar, halka markabka kale laga lahaa dalka Norway oo boqortooyada Sacuudiga ka soo qaaday petroleum isagoona ku sii jeeda waddanka Taiwan. hase yeeshee dowladda Iiraan ayaa ka jawaabtay oo beenisay weerarka lagu tilmaamay in iyadu ay u geysatay maraakiibta lagu waxyeeleeyay gacanka Cumaan. dhinaca kale qaramada midoobay ayaa ka digtay in caalamka uusan u dulqaadan karin dagaal kale oo ka dhaca bariga dhexe. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlay shir albaabadu u xiran yihiin oo ay yeesheen xubnaha sarsare ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa cambaariyay weerarkaas, isla markaana la ogaan doono xaqiiqda iyo mas'uuliyadda cidda iska lahayd. weerarka labada markab ayaa imaanaya iyadoo ra-iisul wasaaraha dalka Japan Shinzo Abe oo ku sugan yahay magaalada Tehran ee dalka Iiraan, isagoo isku dayay inuu qaboojiyo xiisadda Iiraan iyo Mareykanka ee la xiriirta barnaamijka nuclear-ka ee Iiraan iyo khilaafka wadamada Khaliijka iyo Iiraan. warkood kala socoteen daawadayaal qubanaha wararka TV weynaga intaa ciddu warku suugo waxay dib uga heli karaan qubanaha channel. haddii aad channelkeena ku cusub tahay fadlan subscribe-ta, like-ta iyo share-ta inaga iloobin. waadna ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararka qubanaha TV.